xilli 24 saac ee lasoo dhaafay xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan uu ka dhacay dagaal geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa si weyn uga hadlay dagaaladaasi qaar ka mid ah odayaasha ka soo jeeda gobolka Hiiraan nabadoon Hiloole Macalin Yacquub oo ka mid ah nabadoonnadaasi oo la soo xiiray warqabadka danan ee magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay in markii ugu horeysay dagaalkaasi u dhaxeeyay ciidamo kala taabacsan maamulka gobolka Hiiraan oo hogaamiyo Cabdifataax Xasan Afrax iyo maamulka Westland State ee dhawaan halkaas laga dhisay isla markaana uu yahay mid laga leeyahay dana gaar ah sidoo hadalka u dhigay dagaalka Hiiraan ka socda wuxuu u dhaxeeyaa maamulka Hiiraan ee Cabdifataax uu madaxda ka yahay iyo qolada Westland qoladan Cabdifataaxna waxaa dirsaday madaxtooyada laga dirsaday Xasan Sheekh Maxamuud oo dirsaday inuu dirsaday cadaanteeda ku sheegayna ma naga dhigaysane Xasan Sheekh awal asaga diray inuu haddana ka soo qaado ummadda ninkaas uu xasuuqaya marna meel suudiga u leeyahay uu dirsanaa mar walba uu dirsanaa mid kale waxa ku cadeynaa nimankii amisom ahaa ee Djibouti ku dhashay saaki dagaalka ay ka qayb qaateen dad ay xasuuqeen halkaas ay ka gudbeen marka waxayna ka qaataa Cabdifataax oo waxa la yiraahdaa ninka gobolka oo madaxiisa saaki ka qaataa asraa dirsaday sidaas oo ku socda marka daaqoday nabadoonka oo sii wata hadalkiisa ayaa ugu dambeyn ugu baaqay labada maleeshiya ee ku dagaalamaya gudaha magaalada Beledweyne inay dagaalka joojiyaan isla markaana loo baahan yahay in la kala dhex galo maadaama dagaalka uusan xalka ku jirin waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo Cabdifataax inuu joojiyo ama Soomaaliya ay ka baxdo ummadda Ilaahay nin deegaankiisa iyo dalkiisa iyo dunyadiisa lagu haysto maree dadkaas la xasuuqayo laga leexdo sidaas aan ku baaqaynaa dagaalka Beledweyne ayaa ilaa hadda aan la ogeyn sababaha ka dambeeyay iyadoo aysan jirin cid kala dhex gashay oo ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolkaasi Hiiraan.